dabeecado qaarkood waali la moodo balse xiriir weyn la leh caqli badnida. Dadka maskaxda badan fariidnimada. Qaar ka mid ah dadkii ugu maskaxda badnaa ee dunida soo mara Albert Einstein iyo Charles Darwin waxa ay lahaayeen habdhaqanno cajiib ah sida gooni u jooga iyo goor dambe seexashada. Inkastoo dadka caadooyinkan leh loo arko inay yihiin kuwa lala yaabo, haddana daraasado ayaa la xiriiriyey maskax badnida. Sababtuna waa caadooyinkeenna maalinlaha ah waxa ay saamayn weyn ku leeyihiin caqligeenna, waxayna beddeli karaan habka aan fakarno. Heeldheerayaasha cilmu-nafsiga ayaa soo bandhiga caadooyin qaarkood waali la moodo balse astaan u ah dadka maskaxda badan, waxayna kala yihiin. Naf la hadalka. Inaad isla hadasho macnaheedu inaad waalan tahay, waxay tilmaan u tahay inaad ka caqli badan tahay qofka caadiga ah. Inkastoo isla sheekaysiga ama isla hadalka la moodo ceeb, balse daraasado badan ayaa iftiimiyey inuu faa'iidooyin waaweyn u leeyahay maskaxda. Waxaa ka mid ah inuu yareeyo stresska, inuu wanaajiyo xasuusta qofka iyo diirad saaryihiisa, iyo inuu dareemo farxad. Goor dambe seexashada. Waxaa la arkay in dadka habeenkii goor dambe seexda ee howlaha u yaalla si firfircoon u qabsan kara saacadaha dambe ee habeenkii ee loo yaqaano night owls ay yihiin dad aad u maskax badan. Daraasad sannadkan bilowgiisa la daabacay oo lagu sameeyey 6,000 oo qof waxaa lagu arkay in dadka habeenkii goor dambe seexda ay kaga sare mareen imtixaanada garaadka dadka fiidka hore seexda. Qaar ka mid ah dadkii maskaxda badnaa ee dunida soo maray sida Darwin and Marcel Proust waxay lahaayeen caadada goor dambe seexashada ee habeenkii. Isku dhex daadsanaanta. Dadka qaar uma dulqaadan karaan qol, xafiis ama miis isku dhex daadsan, laakiin dadka maskaxda badan ma kala jecla? Inay arkaan warqadaha, buugaagta iyo qalabka kale ee goobta shaqada ee isku dhex daadsan waxay caawisaa hal abuurkooda, fikradahooda iyo mushkilad xalintooda. Su'aal badnaanta. Dadka maskaxda badan waxay caan ku yihiin xiisaha aan kala joogsiga lahayn ee ay u qabaadaan inay wax ka ogaadaan dunida ku hareeraysan. Waa dad su'aalo badan, waxayna su'aalahooda loo arki karaa macno darro, laakiin waxay rabaan inay wax walba fahmaan. Baahida ay u qabaan cilmiga kuma koobna maado gaar ah. Maskaxdoodu waxay ku foogan tahay islamarkaana su'aalo iska weydiinaysaa wax kasta oo ay la kulmaan. Gooni u jooga. Dadka qaar gooni u jooga waxay ula mid tahay xabsi. Waxay jecel yihiin inay markasta bulshada ku dhex jiraan, waxayna firfircoon yihiin marka ay dad badan ku jiraan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la arkay dadka caqliga badan inay raadiyaan gooni u jooga, waxayna farxad ka helaan inay naftooda wakhti la qaataan. Tan macnaheedu ma ahan inay bulshada necab yihiin ama ay yihiin khajilaad badan, balse waxay ka helaan inay si deggan u milicsadaan oo u qiimeeyaan fikradahooda iyo dareemadooda, oo ay wakhti ka qaataan hadalka badan si ay diiradda u saaraan fikirkooda iyo fikradahooda. Gooni u jooga waxa uu siiyaa fursad ay si qoto dheer ugu balbalaariyaan mowduucyada ay xiiseeyaan, inay ka fikiraan mushkiladaha adag iyo inay si hal abuur leh ugu fikiraan maadaama aanay jirin wax jeedinaya.